أنا ما نجي يا حبيبي. أنا إيه مستيقظة ولا هذه استاكر توب بسين أنا لما ما سي ما أنتي أنا حنت صحينا وسام توانجر كفته مركان كعنا. أوكي مثل أنا ندوش إيسار أنت أود كلا براوينا أيوه بربرصوت qofka sidaas u taahaya waa gabar Soomaaliyeed waxa dhinacyadeeda dhan taagan gabdho kale iyo rag kale oo Soomaaliyeed raggan waa geesiyaal gabadhuba waa ay soo dadaashay dhowr wadan ayay soo martay hase yeeshee halkan oo ay qadarteeda ku ekaan doonto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka say waxa ay la kulantay waxaysan filayn waana tan dhaxal siin doonta in halkaasi ay ku geeriyooto iyada oo hamigeedu uu ahaa inay nolol tii wadankeeda ay uga soo tagtay caasimadeedii Soomaaliyeed uga soo tagtay Muqdisho inay ka hesho qaaradda Yurub waxa aad runtii ولا هذه استاكر iiga nixiyay sida gabadhan walaasheen ah وسام توانجر كفته. ay ugu geeriyoonayso jaqda dhexdeed sidoo kale waxa aad iiga farxiyay أيوه بربرصوت oo han iyo dhiiranaan isiiyay sida geesinimada leh ee dhalinyarada ragga u badan ee gabadhan wehelinayay ay u quuri waayeen in gabadha walaashooda ay uga tagaan meeshaas qabowga badan bahala galeenka ah jiqda ah ee geeri go'anka ah walaalnimada waa tan oo kale sheekada gabadhan iyo waxa ka dhacay Belarus oo ilaa ay haddaba taagan ayaan kula wadaagaya balse ka hor taas waxaan ka codsanayaa ugu yaraan xitaa cibro qaadasho ha noqoto dad kale oo raba inay sidaan oo kale ugu dhiirtaan ha noqoto ama xitaa ha noqoto in ugu yaraan fariintan aan gaarsiino ehelada dadkooda qaarkood laga yaabo inay la yihiin meeshan ku baxeen fariintan ila gudbi meesha ay mudan tahay gaarsii hana la harin una duceey gabadhan iyo kuwa kale oo tiro badan oo jiqdaas naftooda ku waayay أنا إيه مستيقظة ولا هذه استاكر توب بسين أنا لما ما ما أنتي أنا حنت صحينا وسام توانجر كفته مركان كعنا. أوكي مثل أنا ندوش إيسار أنت أود كلا براوينا أيوه بربرصوت ninkaas dhalinyarada ah geesiga wuxuu diyaar u yahay inuu doodka ku qaado gabar laga yaabo inay isaguba ka culeys badanta laakiin waxaas waxa kala weyn walaalnimada wada dhalashada gabadhu waa dadaalaysa inta tabarteeda laakiin qabow ayaa lagu ka galay xilliga safarka uu ahaa xilli qaboobo oo hadda lagu jira lugihii markii uu ka galay barafki ama qabowgii dhacay waa ay socon weysay dhulkay tib ku tiri wiilasha waa sabri la yihiin mid dhaha anaa doodka ku ridanaya walaashay cidlo ugama tagay iyo mid dhaha war waa isla qabanayna ayay xaaladu ku ekaatay intaas kadib maxaa dhacay wakaasa hal nin oo geesiya oo ninkii balanta qaaday ayaa wada xambaartay gabadhi inta tabartiisa ah ayuu qaadaya juqda waa u jeedaan halkaas ayuu la maray ilaa markii dambe tabartu ay ciishay afar ayay ku tageen ilaa iyo 5 waxay diideen inay gabadha walaashooda uga tagaan cidlada dadaalku ma yara xaaladuna waa sidaas waa xaalad runtii qofka maanta ku abaal galay waliga aadan hilmaameyn haduu Ilaahay ku soo mootiyo waa xaalad adiga oo ku sugan hadii aad noocan la kulantid aad runtii adduunyada ka sabraysid habeenkii iyo maalintiiba isku mid ayay u tahay qabow ayaa jira halkaas u jeedaan ee jaakatiimanka iyo lugaha iyo gacmaha la isdhex gashtayba waa qabowga jira ee daran ee dhacay dartiis xaalkooduna waxa uu marayaa walaalahan Soomaaliyeed meel aad u liita markan dadaalkoodii si kasta uu ahaa intii ayaga ahaa ee ku guuleysatay inay safarkaas Ilaahay u yara fududeeyo oo uusan dhib la'aan ku noqdo macnihii naftooda haysan halis ku galin ama ku go'in waxa laakiin suuragali weysay in gabadha walaasheena oo aan sawirkeeda halkan la ogolayn oo aan soo dhigay telegramka teedii halkaasi ay ku gashay siday ii sheegeen waa ka soo tagi waayeen ayaga oo juqda ugama soo tagin iyadoo naf baxday ayay xitaa sidoo kale sheegeen inay duudka ku wadeen Allah geesisana
oo ay u diideen walaashood in ay noqoto qof raadkeeda la waayay taasoo keentay in intii tabartooda ay gabadha soo wadeen markii dambana gabadhu ay sidaasi u nafbaxday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa runtii gabadhaasi jannadiisa u weydiinayna laakiin meeshan waxaa ka muuqata khatarta dhibaatada uu leeyahay geediga hubanti la'aanta ah ee dhul iyo bad iyo wuxuu raba ha noqde taasoo qof kasta aan ka wacyigelinayno oo aan xal u ahayn runtii dhab ahaantii wadanka Belarus la yiraahdo hadda xaalad aad u adag ka taagan xaaladda meeshaas ka taaganna waxay maraysaa meel aad iyo aad u lidata oo meeshii laga bixi jiray waa la xiray wadamadii kale ee Jarmalka meelaha laga geli jiray waa la xiray waxa kaliya oo dadku u furnayd oo dhawaanahana la maray xad uu ruushku ugu talagalay oo ah in laga soo gudbo oo dhinaca Finland la aado iyadiina waa la xiray meeshaas marka waxa ka muuqata walaalayaal in dadkeenu ay qabowgii iyo dhibaatadii ku dhex jiraan dawlad iyo cid kale oo mas'uuliyadoodii si gaar ah uga fikiri karta marka ay halkaas ku dhibaatoobaan xitaa qaar badan ila soo hadlay inay laabtaan ay rabaan laakiin cid ka caawisa malaha duca kaliya awoodaan dadka Soomaaliyeed iyo in ayagina dadkan inay Ilaahay uun tala saartaan si kale oo xaalkooda u yahay malaha waxa idin la wadaagay warbixintaas dareen taabad kale murugada leh ee runtii aad ka iiganaysa dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo adeeg jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faahfaahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya